eedeedaan ka dhow Ibrahim Ali Yareen maxaa dhaxday Ibrahim Ali Yareen war maxaa tiri Ibrahim Ali Yareen Ibrahim baahi yali Yareen Ibrahim baa lagu yiraahdaa ha waan gartay haye Ibrahimow haday turto Allah haye waxaan kugu soo dhaweynaynaa su'aasha ku weydiinayna waxaad sheegtaa hooyo iyo aabe sagaal caruur isku dhalan weligood saarki maxaa dhacay maxaa adiga markaad aragto waa la iska cadaydaa markaad jaanisayso waa la iska cadaydaa anu waan iska cadaya markaan jaanis laba waka maxaa ku jaban ana caanaha gaday aan rabo iska cadayeen maxaa xaalada aad baad u baahad ad waxaad ku cadaytaa anigu guriga lama soo dhaafo haya inaanu jeebkan ku wataaba war maxay leedahay hayaad baad mahadsan tahay waad mahadsan tahay walaalahaduna asxaabto dhanna waan salaamayaa meel walba ay joogaan maalin weeyta waadna waashee waa anaga salaanay moogtahay dad baan fadhiga ku salaanay dad badan baa soo wacay dadkii soo wacay oo dhan waxay dhaheen degmadeedii maxay u salaam weeyday tuuladeedii maxay u salaam weeyday magaaladeedii maxay u salaam naadadan baa nagu salaamin ka magacaaga eedeedaan ka dhow Ibrahim Ali Yareen maxaa dhaxday Ibrahim Ali Yareen war maxaa tiri Ibrahim Ali Yareen Ibrahim baahi yali Yareen Ibrahim baa lagu yiraahdaa ha waan gartay haye Ibrahimow haday turto Allah haye waxaan kugu soo dhaweynaynaa su'aasha ku weydiinayna waxaad sheegtaa hooyo iyo aabe sagaal caruur isku dhalan weligood saarki maba dhiinaba wilisha adduunyo ma ku dhiinaba taas maxaa dhacday adduunyo wilisha ma ku dhiina taas adduunyada wilisha ma ku dhiin weli taas adduunyada kama dhicin buu leeyahay ana garanayo waa hagaag way ka dhacday waxaa jira hooyo iyo aabe sagaal caruur isku dhalan weligood waxaana dhicin bas maylena qado kurtee in lamada qof walaasho nis jeeyo saaslay uurka gal ahaa waana nis arag dhigi korta wuxuu leeyahay war maxaad ku soo celi may dhigi korta keenay lamada qof in walaasho nis jeey dhakhtar intii linjey saas ninka wuxuu yidhi walaal anigu ma garanaye walaal waad mahadsan tahay Soomaali leeyo ma jidiya Soomaali waa tahay waan arkaa Soomaali laakiin luqadiisa saacadu ku hadlaya ma lahajada waa saxanta walaal waan ku fahmay laazim ay fahmas su'aasha marka labadaba isugu kaaya daro maadaama labada luqadood ba fahmaysid tii hadda bal aniga lafteeda waa laga jabsiyay afka waan aqaanin jiray laakiin waa laga jabsiyay in yar baan ka aqaanay intii yar waad ka badisay intaan ka aqaan way ka badataa hadda intaan ka aqaan marka meel kale maraysaa af Soomaali ku soo noqo af Soomaali kan af Soomaali erto maxaa tiri ka hadal idaasan maxaa tiri ka hadal naabal weydii waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kadiska magacayga waa Abdixaliin maxaad galan weey waa ku soo dhaweynayaa su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo waxaad ii sheegtaa aabe iyo hooyo sagaal caruur isku dhalay weligood sagaal caruur isku dhalay weligood ay saarkin weligood saar معقول معه سؤال waxay ku leedahay walaal nin baa sagaal caruura islaam baa sagaal caruura dhashay ninkii sagaalka ka dhalayna wuu joogaa weligoodna ma aanay sarag arinta maxaad ka leedahay majiniya ka dhalay marka waa majiniya ka dhalay hadii saas arkin islaanta jimba ka dhalay baad leedahay baya waar islaanta iyo ninku way isqabaan sagaal caruura islaantu dhashay ninkeedina wuu joogaa iyadina way joogtaa de weligoodna ismaarage maxaa sababay waxa sababay sagaal caruurna wuu leeyahay ninkiina waa walaaniyo su'aal igu adag su'aashaas miyay ku adagtaa ku weydiinayo waxa weeyaan waxaad sheegtaa hooyo iyo aabe isku dhalay sagaal caruur oo weligood saarkay hooyo aabe isku dhalay sagaal caruur oo weligood saarkay hooyo aabe isku dhalay sagaal caruur weligoodna isma arag kuwaas ma Snapchat ku jiraan ma Instagram ku jiraan kuwaas waa social media ma kuwaas waa dadka social media ku jiraan ma caruur isu dhalay maanu maqal waa kuwa maanu maqalnaada aabe iyo hooyo isku dhalay sagaal caruur oo aan weligood saarkay oo adduunka soo maray weligoodna isma ma dhici karto waxaas walaal
taas ma dhici kartay may waa aabe iyo hooyo Soomaaliya si fiican uga fikir sagaal ciyaal isku dhalan waliina jin miya waxaas jin ma bilaad haye ma garan taas ma garanay waa Maxamuud waa ku soo dhaweynayaa su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo waxaad ii sheegtaa hooyo iyo aabbo sagaal ciyaal isku dhalan waligood wallahi ma garanay mashquulkaas duunka waa kulay mashquulka duunka ay kamid tahay kolba sagaal caruur isku dhalan manaysa raas wax dhici karo ma kulay waa biyaha isu dirayaan fila biyaha isu dirayaan fila هذا ما كوسو دوينيا برامج كيس كمقعد waan dhawahay walaal magacayga xulay maxamed saciid xasan maxamed oo ku soo dhaweynaya su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo waxa sheegtaa hooyo iyo aabe sagaal caruur isku dhalay waligood arkin hooyo iyo aabe sagaal caruur isku dhalay waligoodna wala kuwaas ma jimba jid ma bilaad walaay sagaal caruur isku dhalay waligoodna walaay kuwa ma garanayla su'aasha wallahi garan maayo hooyo iyo aabe isku dhalay sagaal caruur oo sagaalka caruur walina ismay arkin sababta maxay sagaal caruur waa oday iyo hooyo adigu tusaale ahaan hooyo iyo aabe sagaal caruur isku dhaleen ismayna caruurtan isaqoon miya ma hooyadii aabaha is arkin say isku dhaleen marka hadayna sarag naa waxa ma jirta de walla laabanaysa taa walla laabanaysa walaalli lama laabanayo way jirtaa bal nimanka weydii wax macquul ah ma walaalli way jirtaa waa hooyo iyo aabe sagaal ciyaal isku dhalay oo aan is arkin hooyo aabe sagaal ciyaal isku dhalay waligood isma arag war maxay leedahay de sayna soo arag walaal waxa ma jirta walaal naga daaya akhan ugu wareerina galabta wax qaldan baad wadataa aad oo masantay talabaada ku weydiinayo wax markaad war way jirtaa waa iska leedahay maxaa ta sagaal caruur ay caruurtu ma sagaal caruur ay isku dhaleen maynan is arkin ayagana is arag bismillah waa dadkii hore moogtahay isma arki jirin ya dadka iimaanka beelay ma ahe waa dadkii qumanaayo islaamka ahaa marka dadkii isku tagayeen de kuwaas ma arag way dhacdaa ma su'aasha way qaldan tahay xagaa maamiya ma